maxaa ka dhacay Soomaaliya 21 Oktoobar 1969 maanta oo kale waxaa la oran karaa afgembi ama kacaan. Haddaba muuqaalkan ayaan kugu sheegi doonaa ila joog ilaa dhamaadka siina gaarsii saaxiibadaada naguna soo bir mahadsanid. Soomaaliya waxaa ka dhacay 21 Oktoobar 1969 afgembi ay hogaaminayeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo booliiska. waxaana garwadeen ka ahaa taliyihii ciidanka Generaal Maxamed Siyaad Barre. dhacdadaas waxay ka dhigan tahay isbedel muhiim ku leh taariikhda Soomaaliya loona baahan yahay in la dul istaago si looga barto casharo muhiim ah. dadka qaar waxay ku doodaan in wixii dhacay habeenkaas ay ahaayeen kacaan oo aan la oran karin afgembi. ha yeeshee ciidanka ayaa talada dalka la wareegay, sababtuna waxay ku sheegeen in lala dagaalamo musuqmaasuqa iyo dulmiga bulshada ka dhex jiray. taliyaha ciidanka waxa uu soo dhisay gole sare oo ka kooban 25 saraakiil, waxaana ka mid ahaa Maxamed Siyaad Barre, Maxamed Ceenaashe Guuleed, Xasan Kulmiye Afrax, Maxamed Mire Muuse, Maxamed Cali Samatar, Jaamac Cali Qorsheel, Axmed Maxmuud Cadde, Cabdalla Maxamed Faadil iyo qaar kale oo badan. golihii sare ee la doortay waxay burburiyeen dhammaan xeerarkii dalka. 1979 goluhu wuxuu qaatay ku dhaqanka hanti wadaagga. sidoo kale waxay go'aansadeen dhaqangelinta xeerka qoysaska kaasoo ka soo horjeeday sharciga Islaamka ee diinteena suuban. sababtana waxa uu sameeyay ragga iyo dumarka. sidaas waxa uu dhaawac ku ahaa waxyaabaha lama taabtaanka u ah bulshada Soomaaliyeed. culimada xilligaas joogtayna qaar ay gud u galeen. 1978 waxaa dhacay isku day afgembi kaasoo aan suurtagelin. aynu dib ugu noqono 21 Oktoobar. afgembigii andhi ku daadan Soomaalidu idil si hagar la'aan ay u taageereen golihii sare ee kacaanka. si daacadnimo leh ayaa loola shaqeeyay. Allah uu naxariistee Abwaan Cali Sagulle maalintii xigtay ee afgembiga oo ku beegneed 22 Oktoobar 1969 waxa uu walifay erayada heestii ahayd haddii xalay sagaalkii xilkaskii noo dhaqaaqay oo maanta xoogii haysto xamdi ilaah weeye. dhan kasta dib u dhac dhaqan dhaqaale ayaa dhulka la digay. waddankana wuxuu la mid ahaa beer bislaatay oo u baahan in miraheeda la gurto, iyadoo markaasina loo baahnaa in hoggaanka sare la bedelo. waxaana markaas curatay kacaankii Oktoobar. curashadii kadib Maxamed Siyaad Barre waxa uu ballan qaaday inuu xukunka dib ugu celin doono gacanta dadweynaha markuu tirtiro musuqmaasuqii baahay. xilligaasi khudbadihii uu jeediyey hadalladiisa waxaa ka mid ahaa: subax wanaagsan. saaka waxaan ku jeclaystay inaad halka isugu timaadaan inaan idinkala hadlo waxyaalaha aan isleeyahay dhanka caamka ah waxay ku xiran tahay shaqadeenna iyo ragga banidiisa waxaa suura gasha inaannu iska naqaan banaanka, laakiin cadaalad ragga haya in haddana aanu wejiga iska baranno. anigu inaan barto waxaa suura gasha iyagu intooda badano inay yaqaaneen. saad ogtihiin dowladdu waxay ka koobantaa xubno badan oo xubnahaas badan mid walba haddii ay hawsheeda sida xalaasha u haysato dowladnimadii markaas ay suuro geli karto. xubinta adinku aad haysaan waxay ka mid tahay xubnaha qiimaha dheer u leh dowladnimada suuroonteeda. haddii aynan jirin ama aynan caafimaad qabinna ay dhici karto dowladnimadaasu mid magaca inay noqoto. haddaynu maskaxdeenna dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa iyada oo dalka cimilada uu si u baxsanaa oo si aan hufnayn us ahaa, haddana dhujinta weyne waxay ku suurowday cadaaladda inayan sidii loo rabay aynan ahayn, iyada oo sababuhu ay fara badan yihiin oo haatan qof khaasa aan la saari karin. haddii aynan taasu dhicin cadaaladdu ay ku joogi lahayd amaba loo doon lahaa hawsheedii inay sidii xaqa u qabsato, ma ay dhici karin haba yaraata ee maamulkii xumaa oo dalka lumiyey dadna u dhigay
hore u socodkii adduunka oo idil jiray. waxaan u leeyahay haddee wixii xuruuba sharci baa ku fadhiya oo sharci baa jira, baaq qabanhayaa jira. haddii baanka haddii lagu qabto waxayna tahay tuuga ma dhacdeen, laalushu ma dhaceen, waxa haatan loo baxshay musuqmaasuq ma dhaceen. waxa saad ogtihiin nimankii khabiiriinta ahaa ay ugu yeereen waa siyaasaddaa doonaysa oo deynta ahaana ma ay dhaceen. wixii siyaasadu doonayso iyo waxayn doonaynina waa kala caddaan lahaayeen haddii sharcigu sidii loo soo dejiyey ama aynu kitaabada uga dhigannay isu fuli lahaa. taa yacni waxaan idinka xusuusinayaa habowgii hoggaanka dalku ishabaabay horumadiisii waxay ka mid ahayd ama waxayba ahaydba sharciga oo shaqadiisii aan qabsanin. waxaa isweydiisla marka habowgaasu Soomaalidu waxay tiraahdaa shini dirirtay malabkeeda ayaa la helaa. durbadiiba waxaa iska hor yimid 25kii sarkaal golihii sare ee kacaanka, markaasuu kacaankii jiray keliya 5 bilood. waxaana loo hirgeliyey halkudhiggii ahaa qorsheel qoorta gooya. jenaraal jaamac cali qorsheel oo lagu eedeeyey isaga iyo odayaal ganacsato ah inay abaabuleen afgembi xukunka loogu ridayo maxamed siyaad barre ayaa la xiray 24kii bishii afraad 1970. taasi oo ahayd been abuur balse u muuqatay in dan kale laga lahaa. xabsiga ayaana loo taxaabay waxaana lagu tilmaamay qarandumis. 10kii bishii sagaalaad 1970 dowladdii kacaanka waxay soo saartay sharci nambarkiisu uu yahay 54 kaasoo ka kooban ilaa 25 qodob oo wada dil ah. sharcigaas oo u horseeday in loo cuskado Soomaali badan dilkooda. dhinaca kale dowladdii kacaanka guulaha ay gaartay waxaa ka mid ahaa fulinta mashaariic dhaqaale ee dhinacyada waxbarashada, beeraha, xoolaha. sidoo kale waxa ay dhistay kaabayaal dhaqaale oo ballaaran dhinaca arrimaha bulshada. kacaanku waxa uu dadaal dheer ku bixiyey adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, isagoo dib u dejin ku sameeyey dadkii ay saamaysay abaartii dabadheer ee dhacday 1974. sidoo kale kacaanku waxa uu qoray afka hooyo si loo ilaaliyo keydka dhaxalka ah ee dhaqanka Soomaaliyeed.